wafdi ballaaran oo ka socda urur siyaasadeedka cusub ee wadani isla markaasina uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha ururkan wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan ayaa maanta soo gaadhay magaalada Caynaba ee gobolka Saraar. wafdiga gudoomiyaha oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen magaalada taageerayaasha urur siyaasadeedkan cusub ee wadani ay safarkiisa waxa ku wehelinaya xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin xildhibaan Ibraahim Dhaadheere, xildhibaan Faarax Dheere, Xasan Xuseen Codyare, Muuse Xaaji Maxamuud Guuleed, Muuse Inji, Cabdilaahi Siciid Dheere, Professor Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale, mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan iyadoona halkaasi sidoo kale ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka wadani ee heer gobol iyo mid degmo garabada haweenka iyo ururada gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro waxa ugu horeynba uu xariga ka jaray xafiiska ururkan wadani ee gobolka Saraar isagoona ugu dambeyntiina ay mas'uuliyiintu khudbado uga soo diiyeen taageerayaashooda afaafka hore ee xarunta ururkan wadani. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Xuseen Codyare oo tilmaamay in ururkan wadani ay kii ugu horeeyay ee gobolka Saraar xafiis cusub ka furta wuxuuna ugu baaqay taageerayaashooda oo aad u fara badnaa inay codkooda siiyaan ururkan wadani. sidoo kale waxaa iyana goobtaasi ka hadlay Muuse Xaaji Maxamuud Guuleed, Muuse Inji, xildhibaan Faarax Dheere, xildhibaan Ibraahim Dhaadheere, Professor Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale, gudoomiyaha ururkan wadani ee gobolka Saraar Maxamuud Hilbayre, gudoomiyayaasha garabada haweenka, ururada dhalinyarada, aqoon-yahan, oday dhaqameedka deegaanka iyo weliba mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantood isaga daba maray muhiimadda ay leedahay in taageero lala taago siyaasaadka cusub ee wadani. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha urur siyaasadeedka cusub ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in ururkan Somaliland National Party ee wadani uu u taagan yahay horumarinta la dagaalanka qabyaalada iyo ixtiraaf heerida Somaliland isla markaana loo baahan yahay inay shacabka reer Caynaba taageeradooda u muujiyaan ururkan wadani. waxaanu safarka iyagu ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd inaanu maanta soo furno xafiisyadii gobolada oo uu ka mid yahay gobolka Saraare. waxaa farxad weyn noo ah inaanu maanta xadhiga ka jarnay xafiiska quruxda badan ee aad naga siiseen magaalada Caynaba gobolka Saraare. urur siyaasadeedka wadani wuxuu ka mid yahay urur siyaasadeeda lagu dhawaaqay Somaliland iyo kuwa la soo wadaba ayuu hormuud u yahay. waa ururkii ugu horreeyay isdiiwaangeliyey. kadib markaanu buuxinay shuruudihii qaybta koowaad waxaanu hadda u soo baxnay inaanu soo buuxino shuruudihii qaybta labaad oo ka mid yahay in xafiisyo lasoo furo, in taageerayaasha la diiwaangeliyo. markaas taageeradaa noo muujiseenna aad baa ugu mahadsantihiin. magaalada Caynabi waa magaalo taariikh weyn ku leh Somaliland oo dadka inta nool ay maanta wada garanayaan taariikhdeeda. magaalada sida loo sheegay magaaladu aad bay u dhisantay, magaalo qurux badan bay noqotay. marka dadkana waa ku hambalyeynaya shacbiga reer Sool iyo Caynababa magaalada quruxda badan ay dhisteen. aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Somaliland waa wadan aan weli la aqoonsan. gobonimadeennii aynu 60kii qaadanay 19 bin la soo noqonnay hase yeeshee 20kii sane dambana sidoo kale waxaa loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo ururkiisa wadani magaalooyinka Og iyo Wadaamago oo ka tirsan gobolka Saraar. si kastaba ha ahaatee ururkan wadani kii ugu horeeyay xafiis noocan oo kale ka furta magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar tan iyo xilligii ay golaha wakiiladu ansixiyeen firada ururada siyaasadda. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Caynaba.